xilliga uurka waa waqtiga ugu badan oo hooyadu ay isku arki karto isbedelo jireed. Marka ugu horeysa waxay isku arki kartaa lalabo iyo matag fara badan. Marka xigta laab hur, wadna garaac iyo culays bogga ay ka dareento. Marka xigta miisaanka ilmaha oo siyaada iyo kala baxa minka oo kor u soo riixa GIT-geeda ama wax waliba oo ku jira dheefshiidkeeda. Marka xigta kaadida oo ku soo noqnoqota iyo marka ay qufacdo ama ay qosasho oo ay kaadidu ka baxsato. Halka dumarka qaarna ay isku arkaan in miisaanka ilmuhu marka uu siyaado in barar uu kala soo dirso qaybaha hoose ee jirka. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa isbedelada ku yimaada hooyadu xilliga ay uurka leedahay, gaar ahaan ciladaha la xiriira laab hurka, culayska bogga iyo wadna garaaca. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. 80% dumarka uurka leh waxa la soo dirsaa wax lagu magacaabo gastroesophageal reflux ama jeerdi, taas oo ah dabac ku yimaada isfinisterka ama duleelka xirma ee u dhaxeeya tubada dhuunta ee raashinka qaada iyo caloosha. Waxaana sabab u ah koriimada ilmaha oo weynaata iyo kala baxa minka, isla markaana sababa GIT contentska ama wax waliba oo ku jira dheefshiidka hooyada inay kor u soo riixaan isla markaana soo galaan dhuunta ilaa ugu dambeyn contentska caloosha ku jira ama wixii gudaha caloosha ku jira ee afka soo gaaraan. Markaana hooyadu ay dareento lalabo iyo matag, sidoo kalena ay la soo dirsaan laab hur, wadna garaac iyo bog xanuun. inta kadib hooyadu waxa ay dareemi kartaa ama la soo dirsi kara caloosha oo fariisata iyo raashinka oo ay qaadan weyso. Marka waxa muhiim ah hooyadu inay isticmaasho dawooyinka lagu magacaabo anti-acid, kuwaas oo lagu dagaalamo acidity-ga bata ee caloosha iyo regurgitation-kaas ku imaanaya hooyada ee raashinku uu ku soo noqonayo in lagu yareeyo. inta kadib waxa laga yaabaa halkaas inay ka dhalato bakteeriyada lagu magacaabo H pylori. waxa muhiim ah hooyadu markaas si joogto ah inay u qaadato dawooyinka lagu dagaalamo ee lagu magacaabo BBI-ga si halkaas aysan ugu dhalan bakteeriyada H pylori-ga. inta kadib si xaaladaasi hooyada aysan ugu soo noqnoqon waxa muhiim ah inay qaadato talooyinkan soo socda. ugu horeyn hooyadu waa inay cabto cabitaan far badan xitaa hadii aysan u baahnayn. inta kadib hooyadu waa inay cunto raashin yar waqti yar kadib, isla markaana iska ilaaliso raashinka dufan kale. inta kadib hooyadu waxa muhiim ah inay cunto ama dhanka cunitaanka ay u badiso qudaarta, sidoo kalena hadii ay awoodo raashinka ay cunayso ay ka dhigto kuwa qolofta leh sida salbukada iyo kuwa la midka ah, kuwa oo caloosha jilcin kara. inta kadib hooyadu waa inaysan isticmaalin cuntooyinka siyaadi kara acidity-ga dhacaanka dheefshiidka sida basbaaska iyo cabitaanada aashitada leh, sidoo kalena ay iska saarto walwalka iyo buuqa. waa mahadsantihiin.